salaada dhexdeeda wallahu a'lam. جزاه الله خير الجزاء. شيخ سوداني بان إن شاء الله سؤال كسعتا. شيخ سائل كان وحكي ودي وحيري دبر حنون أيان لي هاي مركي عند خاطرته وتجينا وحي وير هذين إلا دو وحي كتاجن تيجي وناسها جواوين وحنا مغلي إن علماء دقار أيديدين إن تجميلها الله استعمال قلنك marka maxaa sameeyaa maadaama la yiri caafimaadkaaga baa ku xiran. bismillah arrimahaas kolley hadda ka hor ima soo marin laakiin qofka muslimka ah wixii dhakhtar oo lagu kalsoon yahay oo naasix ah ruuxa caafimaadkiisa oo ku jiro ku caafimaadahay oo dhibnaan u keenaynin in lagu sameeyo inay dhib lahayn ayaan arkayaa wallahu aclam. culamada kalena waa ku dari karaa. bismillahi raxmaan raxiim. waxaa laga yaabaa dee markii gudihii laga soo dhoofay halka la yimi dumarka qaarkood inay timihii gaabiyeen de hadday naasaha gaabintoodiina ku daraan soo hawl maaha. timo gaabiyaabay la ildarnaayeen dumarku timo la gaabiye naase la gaabiyaana waa runtiiyo sheekha way noo cusub tahay. kolley walaalayaal waa dhib jira ummaddana marka ay ummado kale kusoo biiraan colays badan baa fuulaya siyaabo badan baa loo fikirayaa. way jiraan dumarka gaalada qaarkood oo iyaguna sidaa oppositekeeda ama cagsigeeda u fikira oo intay naasuhu ka yaryaraadeen ama ka dibceen yidhaahda ha naloo buufiyo oo ha naloo buurbuuro. markaa gaabin iyo buurnaan lagu jiri kari maayeen waana laga yaabaa dhibka iyo salbiyaadka ay kugu reebaysaa inay badataba. sidaa daraaddeed camaliyaatu tajmiil ama qofku jidhkiisa waxa uu ka bedelayo qaliinka la samaynayo haddii dhib ka weyni uu imanayo waa la iska daynaya. tanina waxay ila tahay islaamaheennu haddii dhabarku xanuuno wuxuuna cabbi jireen xoogaa xulbada dhabarkun dawayso waxbaa iska gaabin bay ila tahay wallahu aclam. bismillah waxaan filayaa su-aashaas in loo soo qoray in dadka laga qosniyaan umaynhayo hase ahaatee siday culammadu sheegeen weeye waxyaabahan jaraaxaadka ah ama qaliimaha lagu sameeyo jirku waa laba qaybood. qaybna waxaa looga jeedaa in laisku qurxiyo isagoon dhib jirin. qaybna xanuun iyo dhaawac baa keena. wixii dhaawac iyo xanuun keeno jirka intiisa kale iyo caafimaadka guud lagu badbaadinhayo asal ahaan waa bannaan yahay. waxaana loogu laaban karaa kitaabka loo yaqaan aljaraxaat atabiya sheekh maxamed mukhtaar ashanqiiti iyo kitaabka sheekh cabdallah alfawsaan uu qoray ee aljaraxaat atajmiiliya loo yaqaan. waxayna taqriirinayaan gabadhaasi haddii caafimaadkeeda uu khatar galayo nolosheedana ay cidhiidhi galayso qalitaanka la yareeyo labada xubinna ama xubinkaas la yareeyana uusan wax dhiba ku keenaynin caafimaadkeedii iyo tarankeedii xagga awlaadda iyo ilmaheediba inuu bannaan yahay bay marayaan. waana sida raajixa sheekhuna sheegay iyo sheekh axmedba. laakiin hadday tahay qurxin iyo xisaabo kale oo taanu ka baqayna ah taa lama ogolo waa xaaraan. wixii laakiin caafimaad ahaana lana hubsado inuusan salbiyaad lahayn asal waa bannaan yahay. wabillahi tawfiiq. جزاه الله خير الجزاء. الشيخ حسان بي سؤال كسعطا سائل كان وحوي